supermarket maalin dhex joogay wiil family member ka ila socday marka maama iga soo horbaxday iyo gabadheeda marka lugta i qabatay hata qorox ku dheegle ay dhahday ma fahantaday maamadii inta soo jeed maamadii maxaa la rabay inay dhahdo oo gabadheeda wiilkaan way jeceshahay maasha Allah inay dhahdo bal rabino aytan leeyahay salaamino oo saan oo dhan ma qaliir u ahayd wiilkii kaazinkayga waa iscilcilnooya boqolku garaaca beesekiyo maxaa waay laakiin dadka caanka taajiriin ay u ogyihiin markii live-ka laga arkay faqiir u egtahay tarak suuda iska wataan ciyaalka xaafadda iska adiga faqiirkaas aad ku saxsuustaa hawo sidaa ku dhawayo qurux ku dhiilow jaamka niirin hadalku ku dhameeyo markaasay tiri waraa Yurub inaad joogto ma ogid miya anigana wallaahi dirislow public markay timaado noole iga xishood badan ma ii jaama jira gaadhi ay dad saaran yihiin annagana mootadii aan saarannahay gaadhina dadaa saaran waxaa laga yaabaa dadka gaadhiga saaran inay passenger yihiin passengerku waxa waaye ninka gaadhiga wada dadka la saaran iska fadhiya dee malaayimka tusaalaha adaa gaadhi leh anaa kula fadhiya saasoo kale inay iska yihiin laga yaabaa madaxaa la soo ridi haye mooto ma raacdid maxaa mootada raacaysid mootada maxaa waaye ani weligii isman hayn dirisla mooto raacaya eeg hadda qofka dhici karta oo isdhahdidniyo intaad meel fog aadi lahayd qofkan wax ka iibsana isdhahdid baa dhici karta imika kan oo kale aa qaadane kan oo kale meeshaan kasoo qaadana isku kuleekaanamo aye imise waaye 3,000 oo Kenya shilin lagu dhahaa waxaa dhee qaali waaye 1,500 bixinaa diris lama 3,000 iska bixin kara weydi macnaha macal jaarka ugu sheegaa kuwa dhinacyada fadhiya diris lama 3,000 iska bixin kara waay dhaadaya baba lay jooga garabka lagu qaaday markaasay hooyadii waxay ku tiri hooyo thank you wiilka aniki iyo aniga banada baray awadi saara iyo soo fiirisro koodor saalim si amla ii fiiris markii dam wiilkeeda amla ii fiiris oo inta ka salaama kale adduunku waxay ku tusinayaan qofkii shalay ku caadi hadda lagu waafajinaa mar labaad inaad is aragtaan life-ka cajiib waa bogta baabadii waxay tiri way dhacdaa marka wax walba waa arkay wax walba social media waa arkay qofkii shalay is caynaysan oo haddana lagu tusinaa inuu ilaahay iskiin horkeenay marka weligaa qof Robilow kulli Nairobi waa ila joogtay waa ila aragtay kulli Nairobi in badan aan ku nooleed mud waxyaabaha qaar niyow dhaca waxa kamid mid oo kale dad wax duuba iska nahay mugta aad isku duubnaa marka badanaa dharka aad u soo iibsanaa ma dharina soo geeytid waa maadaama wax duubi sidii dadka wixii la hor taagnaan kartid mugta maadaama lifestyle-ka ka mid noqotay أنا سوشيال ميديا واحد ضوضاء قصب واي أنا سكير لبسته وحسكير حلت مهم واي بمركز قاعد كل واحد على إنا استهديد نيو أنت أركتد ويل صومالي ومال وحكو إيبناها أما قبل صومالي إنا أركتد ذكرت أو استهديد نيو أنت الميل فوق آلي لهي قف كان وحكو إيبسنا استهديد بعد ذكرت إمك كان أو كلا قاعدنا كان أو كلا ماشي كسو قاعدنا مسكو وكل كلامه aye imise waaye 3,000 oo Kenya shilin lagu dhahaa waxaa dhee qaali waaye 1,500 bixinaa diris lama 3,000 iska bixin kara weydi macnaha macal jaarka ugu sheegaa kuwa dhinacyada fadhiya diris lama 3,000 iska bixin kara weydi intaasoo sanaa ku daawanayna 3,000 waa bixin kartaa ya 3,000 waxba maaha inaad iska bixisaa la rabay adiga kaliya kuma sheegay macal wuxuu u sheegaa kuwa dhinacyada ka xiga maxaa qasab noqonaysa markaa inaad 3,000 bixisid هذيك اللي درسني قف حق نسكو هيستو محل قوي هاللي قرمدي كود هاللي أنا مش وهكا والله بالله المال والبو هذا أنت ويقول على وان سكتوا قاطع لبتو معناها مركل لقاها الله مركل واعي واحد كلا بس كذا أنا وحيابا كلام والله بالله درس لو حكى قدر مكسه وحاس لا روح والبو وحيبنا كاميرمان وقاس لما جرت horta sheegi waa laga iibinaa haddana kaamirada waa lagu waaya maanta waxaana soo booqday lajikii weynaa dirisle
dukaankeega igu soo booqday maasha allah dhar quality leh baa ka gaday adigii dhan bini aadam lagu arko wixii laga gatay lacagtiina waa laga qaatay dan wixii lagu sii cayeysiinaa ma dhaqaaqi karti biskoolada lagu waaya nin kala meesha taagan haddaan aad walaal maxaa ii duwe nashiida ku dul saaran Grisle oo kibray taageerayaashiisana bahdilay يعني حبط إلي لقوها يا كلا أنا قلنا وحاولنا لنا هاي تذكر سأوري بالله ودبرنا ولا والله وإحنا هذا ماله نكلا أنت كاجاي وقدام بين بريسلي وحبه دلي ويل مسكين وقناع سيجي جوي هل مقال بس وقعد سلي وأنا اللي عقد هذا أنا خاطية واحد يبقى كروي كأذيكتي أنت اللي كاميرتك لا كاجي صعد مركوا قصبتها اللي عقد هذا إني لقات واحنا لو وحي سيادة هدلي ما هدلي كرتي إيه متكلا جرتا weligaa adoo kaligaaya afar gabdhood meel taagan ma dhaafto qurux ku dhiilow adoo kaligaa iska socdo wado ama koofiyada xirnaatid ama maska ku xirnaado afar gabdhood meel saa u taagan ma dhaaftay hal mar kadibna wax ma maqashay ma maqashay weligaa waxa saday sifa adduunka waxaan ugu jecelahay qof hadal iga soo daba tuura inuu ilaahdo ugu yaraataba assalaamu calaykum dirsle intaas jecelahay waa dhaafe ma eeg inta soo socotay waxba lama dhahayo waa dhaafe eeg waa dhaafay okay waxba laga hadoo turaa waxay doonto waa noqoto mar walba markaa imka automatically waa ku fikiraa markaa dad ag maraayo waa la soo tuuraa hadalku doono waxa noqdo waa soo tuuray iska sii soco bas haduna hadhaha waan ku salaanay maxaa noo salaami weyday waa isa kaay dhaaftay anoo kula hadalnaanu dhaaftay marka face to face isku soo saan aan kugu soo socdaadna xagga ka soo socotay ma idaahay assalaamu calaykum waaba ku dhaafay hadalka soo tuurisid maxaa sameeyna waa ku dhaafay saana ku dhaafay no marka aan kugu soo socdaadna assalaamu calaykum cabdi madoobe saantahay ma dhahay waxaa aad u fool xumo ka see inuu dadka qaar waxaa arkaysaa xitaa ma dareemayaan family iyo qoys inaad leedahay supermarket maalin dhex joogay wiil family memberka ayaa ila socday marka maama iga soo horbaxday iyo gabadheeda marka lugta i qabatay abti qurux ku dheegle ay dhahday ma fahantaday maamadii inta soo jeed maamadii maxaa la rabay inay dhahdo oo gabadheeda wiilkaan way jeceshahay maasha allah inay dhahdo ma rabin oo عايتين اللي وصل منه قصان ودن ما قليل واحد ويلكي كازن كي هو اسأل إنه بقولكوا قرعة بس كيو محاولة كي قال dadka caanka ah taajiriin ay u ogyihiin markii live ka laga arkay faqiir oo ogtahay track suuda iska wataan ciyaalka xaafadda iska adiga shaqeelkaas ku saxsuustaa hawo sida ku dhawaay qurux ku dhiilo jaamka niirin هذا بقول ما يب خاصة تري ورا يوروبنا جوكت ما أجد معه أنا والله درس له بابليك ماركت ما ضن ولا يحشوط بدل ما إيه ولا درس له واي أركتي ولا يحشوط بدل ما ويلكي واسألي ما وده محاجة غلطنا ذي محمود صنطة وده خوف ويرا وقتها خوف كاني ريسبكت سي وكاحي شو ده أنا رجوا محاجة غلطنا ذي لبدي بنا كتكتي ويصل على تدر أنا إيه ماد أبو خلط ما إيه فاتي أو مع إيه ريوتنا إسكي عافية واكو عافية ناي وبحضي خدر برا هذا يصل على أبو ولدي حريق ستة dadka qaar marka dadka qaar waxyaabaha ay ku hadlayaan ma dareemi karaan qofkan familkiisa inaa ku xadgudubtay oo dad familkiisa hortiisa ku caysay ma dareemi karaan laakiin markii haddana khaladkooda loo sheego waxay jecel isla markii inay ku raali gareeyaan maxaa raali gareynaya bar oo adiga yaa lagu juqjuqeeyay meel walba laga niyo waxaan kusoo xasuustay waxaan saan ma u eegtaa iyo gaajadii waxaas Nairobi waa taqaanaa waxaa jira waqti la yiraahdo rush hour oo macnaha gaari inaad qaadatid waxaa ka fiican inaad mooto raadin haddaa gaari qaadatid 2 saac oo kadib la meesha aadin fiican waxaa dhacday aniga deeq saas kula soconaa aniga deeqda saas socona marka moota raacnay marka annaga oo meel dhex socona istaagnay
manaa jaamaa jira gaari ay dad saaran yihiin annagana mootadii aan saarannahay gaadhina dadaa saaran waxaa laga yaabaa dadkaa gaadhiga saaran inay passenger yihiin passengerku waxa waaye ninka gaadhiga wada dadka la saaran iska fadhiya dee manaahimka tusaalaha adaa gaadhi leh anaa kula fadhiya saasoo kale inay iska yihiin laga yaabaa madaxaa la soo ridi haye mooto maa raacdid maxaa mootada ah raacaysid mootada maxaa waaye ani weligii isman hayn dirislaa mooto raacaya eeg hadda qofka hadlaya ka gaadhiga wada maa dirawalka maaha okay ka gaadhiga wada maaha dirawalka hadduu hadlo waxaas dhahaniyo waa kuu gaarta adi dirawal hataa waa iska hadli kartaa dhibaato ma jirto qofka xagga daba fadhiya muraadad ya haye maxaa mootada maxaa waaye eeg hadda ha ilaawin qofkan kula hadlaya waxaa laga yaabaa inuu 2 days gaadhiga soo raacayo uu waagi hore iska lugan jiray adigu kugu arkaa adoo mooto saaran hal mar oo ordaaya waa ku gala qofkaas arrintaa Nairobi waa ila joogi jirto aragtay kulli dirisle maraa ku sigtay social media dan inaa jooji oo go'aan ku gaaray wallahi caawa nafisinaya soo wallahi mar aan ku sigtay social media dan inaan joojiyey haddana waxaan soo xasuustay hadalkii ilaahay oo ah qofkaanan ilaahay adoomadiisa ku shukriya ilaahayna uma mahad celiyo you know waxaa dhacday hadda ka hor hooya baraanki marka waa guursana aan ku sameeyey hooyadeedii markaan ku sameeyey baraankaygi ana waxaan islahaa xujooyin dadka ay igu xujaysanaya inay jirto ma fahantay maamada hooyadeedina qof weyn oo da ah ilaahay cimrigeeda ha dheereeyo iska xanuunsan waaye waxaan jeclaa hooyadeydana farxad inaan siiyo asxaabteydana waqti la qaataya marka qaar dadka commenti waxaan dhahay waxaa rabti igu xujay 24 saac gudaheeda sameynaa qaaraa marka waxay dhaheen hooyo waxaad ku dhacdaa naag caddaan aan guursanaa iska taqaanaa qof waayeela ma fahantay maamadii kool ku dhuftay commentiga dhan maamadii loo daatay maamada hadalkeeda slow motion ku furan maamada maxaa ka qaldan adiga waxaan hooyo loo qoorin commentigan waa loo daatay videos YouTube ay ku jiraan saas inta u fiiriyey oo waxaan dhahay bulsho hooyo oo adduunkoo dhan farxadda nolosheeda ah ka xishoon waaye bulshadaasay ugu dhex jirtaan arsaaqada ugu raadinay waaba imtixaane haddana waxaa xasuustay oo ah in abaal celinta ay sharaf leedahay kos qofkii waqti adag yaa taankiisa ku horay hadiyadda ugu qaalisan qof bini aadan ku siin karo oo ah waqtiga ku horay falcelinuu kugu leeyahay marka waxaan sawirtay ah horta xataa waxaan ku sigtay aan dhahay inaa joojiyo haddana waxaan fiiriyey ah 100 qof oo xun waxaa jirta hal qof oo 100 ka quality fiican haddana waxaan niyadda ku dhistay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dambigiisii hore iyo dambigiisii dambal la dhaafay dadkii ka xishoo waaye oo uusta caloosha xoolaha ku jira madax ka saaray haddana daqray waxaa dhahay adiga intay joogtaa walaalkayga kuwaas yaa ilaahay shacabo ibliis farciisa adduunka waa ku dambeeyaa moogta niyo waa runo oo imika feeri hal qof oo social media ku jiro oo iska qarxaya arkaysaa xanaaqi laakiin ma ogid qofka milyanka xanuun uu xamilayo uu iska dhoola cadaynaya ma ogid adig yacni dab shidan waxaa laga dhex raadinayaa madadaalo halka adiga gurigaada aad joogtaa iska qoslaysa yow waxaa dhacday jijiga aaday hooyada waa kusoo xasuustee marka mid waxaa jira walaalkay ani mid iga yaraa jira oo daada iga yaraa video aa kasoo duubay marka waxaan kasoo duubay yes or no waa soo geliyey maalin dhaweyd 3 months ago 4 months ago jijiga markaan joogay waxaa isoo wacday hooyadii oo dhig la qabta aan lahayn sasa lay soo galay waraa saan lay soo galay waxaa lagu dhahay adi haddaa waalatay maxaa ciyaalkayga nooga waale maxay soo aragtay
waxay macnaha maadaama ay aragtay wiilkeedii oo wax noo iyo yees taabanaya meeshana ay dad joogjoogaan waxay isdhaxday waxaan bal ku dhufo commentiga dadka waxay leeyihiin qaaraa soo qoraay wiilka weli ma qaangaadhin be muxuu kala dooranaa commentigii marka ay soo aragtay macnaha caadi normal muunahay waxaa igu dhahay wiilkaygu markuu ii qaangaaday isagaa dooran doono meeshuu soo gala fideoga iiga saar meesha waan ka saaray fideoga youtube kuma jira hadda waa sababta macnaha ani hadda waxu adkaysan karo walaashay walaalkay hooyadii waxaa laga yaabaa in waxyaabaa u adkaysan karin waa sababta ani 11 ani 11 ku ay xaafadayda waxaa ila dhashay 10 anaa 11 hal qof waa sababta aan youtube kala soo fadhiisin lahay hadda sababta waxaan ogahay waxaa anigu dhacaayo oo kale inay kuwaasna ku dhici karaan midda kale dhalinyaro wax waa adkaysan karaan mugta waraa hooyada iyo aabaha markaa soo gelisid comment xun uu qof ciil kuu qabay oo ku nacbanaa oo macnaha adi intuu ku caayi kaa dhergo oo u jawaab weeyay eegana aabaha hada soo dhigtid waa garaaca ayagana maxaa waa ku tufa ayagana maxaa galaysa marka ay waa sababta dadka ila dhasho waa soo gelin karaa social media uu fiican yahay shaqada ma aadaysid good life way dadkaan iskama celin karaan de Brislow laakiin ana waxaan fahmi waaye walaaleyga na daawanay maanta dhanada oo mahadsantihiin dadka commentiga noo qoraay Allah idin sharfo Brislow waxaan fahmi waa aniga markaan ka soo tagno nolosha dhabta ah broadcast live aan wadnaa oo lacag ka sameyn lahayd laakiin diga walaalkayga is wareysanayda Brislow mararka qaar ma is leedahay nolosha social media ah guurkaada xataa saameynay sidii kartaa qurux ku dhigno heerkaan taagan aan kuu sheegayaa ani horta maray noqoto maraan guursanay Soomaa anigu 99% uma malaynayo intaan hool kiraysto in suud soo xiranayo oo nin iyo naag sadda chaasayaan arintaas inay dhacayso uma malaynayo yani I don't think intaan hool soo qabtoon tigidha bixiyo oo meel soo ijaaro fanaan u yeero suud soo xirta gabadha intaas soo xir inaan dhaasi gareynana uma malaynayo yani hadday ugu badato ay wax soo fakraan waa meherka hadday wax soo fakraan waay inta kale sawiro iyo fiidiyoyaal qurux badan oo meelaha adduunyada quruxda badan ee Paris oo kale iyo Maldives oo kale meelahaas le sawiro iyo fiidiyo lagu soo galgalaa bas laakiin Soomaali inta suud u soo xirto iyo gabadhan inta soo xiray aan gacanta qabsataa ma dhahay waraa ka ugu dhow waa ka arooska jooga wax ka sheegay moogta qofka la raadin ka comment kugu soo qori doona waa iska ilow waraa qofka arooska jooga wuxuu ka hadlaa kabahaaga wuxuu ka hadlaa surwaalka xiran tahay gabadha taashkeeda waxa u marsan wajiga timahaas u soo waxaysatay qaabka aad u socoteen inaad cadayd inaad madoobeyd maalintaas in uu stress ku furnaa waraa qofka hadda ani comment kama hadlin video la soo duubay uu qof comment ka bixinay kama hadlin waxaan ka hadlayaa dadka kula jooga arooska ee tigidhada siisay ani ninka saan uma maleeynin iska dhaxayaaba gabadhu saan ma weekay dharkiisa eeg wax fiican u iibsado maxaa ninka saan u eeg macnaha sheekaduba meesha ka dhex bilaabmay marka intaan dad kala madadaalin lahaa oo bariiskayga la cuni lahaa oo inta arooska lagu raaxaysan kala tegi lahaa video lagu duduuban lahaa aniga iyo gabadha aan rabo inaan guursado waa baxaynaa meelaha adduunka qurux badan meelo badan oo qurux badan ayaa Dubai baa jirta Maldives baa jirta Paris waa meel fiican Yurubta meelaha qaab qurux badan baa jira halkaas iska aadaynaa video aad u qurux badan gabadho taas xiran anoo soo xiran ya sawiraan qurux badan intaas social media laga soo helaa intaas le bas